السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha meel kasta aad joogtaan. waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan, anagu waan fiicannahay alxamdulilaah. kusoo dhawaada muuqaal cusub. maanta muuqaalkeena xaggan uga bilaabanaya. waxaan idiinla wadaagi doonaa maanta ramadaan routiinkeena, waxyaalahan sameyn doono dhammaan waxaan isku dayi doonaa biidnillah inaa idiin soo duubo. soo dhawaada idiin leeyahay marka ramadaankiina waa sidee xaguu idiin marayaa. marka maasha allah anaga alxamdulilaah. ramadaan maanta aan video muuqaalkan waxaan duubay muuqaalkan sabtidii, maalintii kusoo gaaray maantana waa isniintii. ramadaan maanta wuxuu marayaa 10 days. wallah ramadaan wuu cararay subxaan allah. waaba hataa 10kii hore waa la dhameeyey. ilaahu kuwii looga dambi dhaafa naga yeela, aamiin yaa rabbi. kuwii ka faa'iideystan ilaahay naga yeela ramadaanka khayrkiisa. 10 beri way dhaaftay, 10kii labaada ku jirnaa. ilaahay kuwii ka faa'iideysta oo mataqaanaya insha allah looga dambi dhaafa ilaahay naga yeela. soo dhawaada. waxaa aadayaa maanta waa sabtigii shoppingkii guriga ayaa soo sameysanayay. shopping guriga soo sameysanaya. afturka ay idin la wadaagi doona biidnillah. afurkan idin la wadaagi doona. ana afurka waxaa iska sameeyaa duhurkiiba markaa qadada sameynayo. afurkana waa sameeyaa. shopping sida arkaysaan waa soo dhameeyayba, gaariga gadaal uga soo guray, guriga imaaday. maanta waxaan idiin sheegi doonaa mid waxaan soo adeegtay biidnillah. waxay kala yihiin idiin kala sheegi doonaa. inta waxaan ku haysanaa wipes iyo cotton babyada u isticmaalaa. xagga waxaan ku haystaa apple crumble, haddaad taqaantid waa taqaanaa. iyo kan caawa markii la afuraa la isku cunaayo waxaa waaye dessert waa mafahante. xagga waxaan ku haystaa kii weelasha lagu dhaqaayay, basbaas, babyga cuntadiisa, chocolate yaalka, cheeskan isagana waxaan kusoo sameyn doonaa waa idiin la wadaagayaa biidnillah. banana, orange, courgette ama zucchini waxaan u maleynayaa suuga ku sameyn doonaa, isagana waa idiin la wadaagi doonaa. pepperska oo laba nooc ah, double cream, isagana waxaan ka sameyn doonaa biidnillah. vitamin C, 2 xabo kabsar caleen, toon, cheese, orange, bur, boorish, suxuurtaan iska sameysanaa. xaggan waxaan ku haystaa caanahan. waxaan u isticmaalnaa shaxan ku darsanaa. xabad baasta, napiga babyga, toilet rolls iyo kii kajada iyo xabad weetabix. isbuucan shoppingkiisa wuu iska yaalaa, wax weyn ma ahayn maadaama ramadaan tahay. maalintiin waxaa la cunaya jirin waa kaasaa. so shoppingka qaar aan xareeyo freezer aan geliyo sidii rootiga iyo soft cheesekan. waxaan ku sameyn doonaa bahalkan macmacaan ugu sameyn doonaa. 2 xabo soo iibsaday, midna macmacaan aan ka sameyn doonaa, midna isagoo nooc kaleeto chicken wax lagu sameynaa aan sameyn doonaa biidnillah. labadooda waa inaan soo geliya isku dayaa biidnillah. channelka ka daawan doontaa. xagga waxaan rabaa inaan idiin tusaa realityga iyo dadka youtuberada qaar waxaa la idiin tusaa guri yaro nadiif ah. aan intaa shopping ku maqnaa ilmaha waa ka tegay. waxaa guriga usoo noqday asagoo u maleynaysid bismillaah meesha ma lagu isku dagaalaa dhehaysid. aan usoo noqday fadhiga waa saas, meelaha kale qaarna haba sheeg maba lagu tusi karaba. marka saasaa ku dhaafay. hadda waxaa bilaabaya adeegii, waxaan bilaabayaa afur sameyskii. afur isla qado waaye meeshaan. anagana afurinoo ahaane, ilmahan waxaan ka siisanayaa qado. xagga waxaan ku sameysanayaa suubkan haddaa hore u isticmaalin please waxaan kaa codsanaa inaa isku daydid. ramadaanta marka la galo inta badan waxaa dhaca calool istaag baa dhaca, laakiin suubkan ani waxaan kuu sheegayaa intaan ku afuray adigii mataqaanaa maasha allah de saaxiibbaa noqonaysaan toiletka. waxaan ka sameeyey, waxaan ku bilaabay waxay ahayd basal. waa basashii caadiga ahayd iyo basashii greenka ahayd aan isku daray oo qoyaneed.
qasab ma aha hal basal hadaa haysatid isticmaal. Ani basasha kale way ii taale intay xumaan lahayd marka waa ku daray. Basala shiilaysaa wax yaroo saliid ah, qudaarta haysatid waxaan isticmaalaa inaa isticmaashid muhiim ma aha, laakiin inuu greenka u badan yahay qudaarta greenka ah waa muhiim. Marka waxaan sameeyay intii aan isku soo shiilay, markaan isku shiilay biyaan ku shubay sida arkayseen. Waxaan isticmaalay ani koosheed bahash hadaa idiin tusayay zucchini iyo waxay ahaydey carrot. Waxaan isticmaalay digirta vegetable oo frozen-ka ku jirto dhan isku jirto aan ku daray. Intaas markaan ku daray misir aan ku daray arkaysaan. Misirta waa muhiim. Misirta maasha Allah aad ay u fiican tahay. Ani misir kama badani marka sida arki kartiin, leanna waxaan rabaa inuu greenka badnaado misirtana ay yaraato. Intaasi waa isku dabooleysaa, biyo badan ka buuxinaysaa, biyo karkaraya ku shub, daboolka saar, ha isku karaana. Markay isku karaan mashiinka qaada gacanta ama mashiinka caadiga ku shub, waa soo shiidaysaa. Ana xagga sare waxaan kaga daray waxaa weeyaan cream, double cream yaraan saa ugu daadiyay si ma taqaanayo. Waxba dhadhan wax ma siinaysa laakiin waa iska jeclaystay. Laakiin waxaa ku darsan kartaa hadaa haysatid qumbo. Qumbada aad ay u fiican tahay waa ku darsan kartaa. Muhiim ma ahan sideedana waa ku cuni kartaa. Bahashan markaa cuntid straight away toilet-ka tagaysaa sheekadeedana ku hayo. Marka maasha Allah lagama sheekeyn kara. Ani intaasaa ku afuray iyo chicken wrap. Maanta waxay ahayd sambuusada iyo waxaasi waan yareeyay. Waxa la shiilay waa yareeyay. Okay, xaga waxaan ku sameysanaynaa chicken. Chickenka anoo ku shubaayo waa iska halmaama kaamirada ma daarneenin. Waxaa waaye chickenka aan lafta lahaynin ayaan isticmaalayaa. Chicken wrap aan sameyn rabaa marka. Chickenka inuu biyo badan ka buuxiso ma aragti. Ani biyo kumaan darin. Chickenka saliid yaraan ku dhibciyay. Chickenkan ku daray waa daboolay. Chickenka waxaan jeclaa aniga ma in aad u karto. Maadaama ilmahayga chickenka taagan oo adag ma jeclo. Xaga waxaan ku sameeyay sambuus yar soo shiilay, 6 xabo sambuus shiilay maanta. Bas intaasi iyo suubka iyo chickenka saal isku cunaa maanta. Maasha Allah. Chickenka waxaan sameeyay marka daboolka saara biyaha iyada dhasho. Xawaajiyadeed iyo waxeeda ku dartaraya, daboolka saaraya, biyo badan ha dhasho. Waxaa rabaa inay jileec noqoto. Markay jileec noqoto oo biyo ay gursanaysa, daboolka ka qaada, biyaheeda ayar ha gursato, dabka yara saaraya. Bas dabka meel gaaban inta u saaro, saliid ku daraa, bas saliid yar ku dhibna. Saliida daarid waa ka badin kartaa laakiin kama badiyo. Intaasi unba ku sameeyay waa khaleynaysa wata chickenka dhacaanay leedahay. Waa soft, maasha Allah. Ma laga sheekeyn karo. Sida arkaysaan chickenka waxaan ku sameynaa ani wrapka, cheese iyo chickenka bas aan isticmaalay binila iyo sauce-ka rabtid. Hadaa rabtid salar kale waa ku darsan kartaa laakiin ani cheese-ka saan ku haysanaa intaasi bas inaan ku sameyno. Kabacdi birta saarayna marka waa dhalaalinayna. Wallahi chickenka lagama sheekeyn karo. Isku day hadaa hore u sameysanin. Maasha Allah waa cunto yaro aad iska yar fudud oo healthy. Ana wrapka waxaan isticmaalaa midka maxay ahaydey oo qamadiga laga sameeyay. Midka cad waa isticmaali kartaa hadaa jeceshahay. Marka maasha Allah sidaas ay noogu soo wada baxayaan sida aragtaan. Soo dhawaada ayaan idin intan hadaa soo gaartay oo muuqaalka daawashadiisa intaan ku soo gaartay. Aad u mahadsan tahay. Ilaaha ka ajar siiyo biidnillah. Like-tan ha iga halmaamin. Wax weyn ay taraysaa. Video-gana share ii dhaha. Dee walaashii waa maskiintaane. Video-gu daawada like-tan u saara biidnillah. Marka waxaan idinkaga tagi doonaa amaanada Ilaahay. Video-giisa xiga intaan ku kulmi doono insha Allah. Muuqaalka like, subscribe iyo share tana inoo dhaha. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Ramadaankana laga faa'iideysto. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.